waxaad ku nooshahay magaalada Manchester waxaadna wakiil u tahay kooxda uu wiilka ugu ciyaaro Manchester City marka waxaan nooga sheegi kartaa xiriirka Soomaalida kooxdan iyo sida hadda erayga ka dhawaajisay oo sida habka loo doorto waxa loo baahan yahay maxaa nooga sheegi kartaa runtii aad iyo aad maaha ayaan ugu faraxsanahay su'aashaas inay weydiisid sababtoo ah markaan dibadda joogo su'aalo noocaas oo kale ayaa la weydiiyaa maantana chance waxaan u helay inaan macnaha Universal TV inaan macnaha wareysigan aad gaarka ah aad iga qaaday markii annaga famil ahaan aan ka soo guurnay dalka Norway sababta aan u soo guurnayna ay noqotay in wiilkeena Cabdisalaan maanta inaan wiilkeena dhaho waa macnaha heerku maanta uu gaarsiisay waa inaan wiilkeena dhaho Soomaaliland ay masalaya ayaa waxay noqotay in annagana la ku yiraahdo meeshan xaafadan akademiyada ku taala Soomaali badan ayaa degan mana aragno ciidan kala xiriirno waan weynay marka chance fiican ay noo tahay markii laga saaro Cabdisalaan in Soomaalida community-geeda aan la xiriirno maalintaas markii bilaabatay in aniga ay u shaqaaleeyaan inaan noqdo xiriiriyaha community-ga Soomaalida iyo Manchester City marka xulitaankii iyo ciyaartoyda aan soo xulayno waxay noqotay in aan macnaha aniga tago meelaha community ay ku ciyaaraan markii waxaan arkay marka carruur badan oo da'weyn sida 16 jir ilaa 25 jir inay ciyaarayaan aniga 16 jirkii u wariyaan keenay waxa la yiri waxa waaye akademiyada ka qalin jibinay ninka keentay ma ninkan waa fiican hala fiiriyo ma u baahnina anaga too late way community gaan dhex galay awareness macnaha waxaan bixiyay orientation fara badan ayaan waxaan ku bixiyay in dadka ku shaqeeya sportiga gaar ahaan ururada in ay ka shaqeeyaan carruurta yaryarka maalintaas ay bilaabatay in carruur 7 jir 9 jir 11 jir 13 jir in la sameeyo nasiib wanaag carruur fara badan aan helnay tusaale waxaa noogu filan wiilka uu dhalay ciyaaryahanka weyn Axmed Sheego Bishaara oo hadda uu ciyaara kooxda Wigan oo 16 jira laakiin markii 3 sano gadaal loogu laabto oo 13 jir ahaa waxa kaloo kamid ah yarka hadda 14 jirka ah oo loo magacaabay under 15ka ee qaranka dalkan hadda anaga aan ku noolahay ee UK Hassan Salim oo ciyaara kooxda Wigan waxa kamid ah ninkan hadda aniga aan dhalay laftigiisa Cabdikariin Caday oo asigana laga soo qaatay community-ga Soomaalida wali guubaabada aniga aan siyaa waxay ahayd community-ga Soomaalida ee degan Manchester waxaan ku yiri nimayo anaga waxaan ka nimid wadamada fog ee macnaha waqooyiga Yurub sida Norway oo kale aan ka nimid adinkana akademiyadu waxay idin jirtaa 5 daqiiqo in ka yar sax marka anagana waxaan u soo diyaarad 2 saac u soo qaadan inta nimid marka adinka ma arki weyseen marka Soomaalidii waxaan moodaa ma aha dad xun ma aha dad aan sportiga jeclayn laakiin wax aan farto in loogu tilmaamo macnaha iliya la nasiib wanaag marka qof baa isha furi lahaa annaga ayaa naqanay familka Caday inaan macnaha albaabkaasi furno maantana adiga goob joog ahaa Cabdinaasir ahaan markii uu macallimiintii ama maamulkii Manchester City ay lahaayeen carruurta Soomaalida waa talent ma aha physical kaliya maskaxiyan inay wanaagsan yihiin social ahaan inay wanaagsan yihiin in tacticadooduna macnaha in ay wanaagsan tahay waa tii adinka markii aad tiri anaga Universal macnaha waa international aad tiri ay kugu yiraahdeen ninkii ahaa Terry John waa tii uu kugu lahaa waa in wada shaqeyn aan sameynaa Manchester City Football Club iyo Universal TV si aan Soomaalida macnaha wacyigelin loogu sameeyo markay wuxuu ogaaday TV-ga Soomaalida ay leedahay inuu kiinayahay sababtoo ah adiga tira 3 jeer aad macnaha wax ka duubtay Nadara oo kale 2 jeer kale wax ka duubay waana barnaamij aad ay wala dhaceen mid kale ajab kasto adinka ka duubtaan waa tii editing ku sameeysan qaybaha ayaga qosay marka u geysaan aad iyo aad ayay kaga mahad celinayeen
haddana anigoo Manchester ka imi saaki aan joogay Manchester Academy inkastoo aan kuleyta ay dambeyn doonto laakiin si aan u hilmaamin mahad balaaran ay soo jeediyeen clubka academyada Manchester City qaasatan adiga Cabdinaasir ahaan sababtoo markii ay terminology-gaaga sportiga arkeen aqoontaada ay arkeen kadib macnaha mahad celintaasi ay ka timi ay leeyihiin waxaan rabnaa marka sanadkii in 2 jeer tijaabo la sameeyo أول حاجة سنة كي هالمر وعير هذا summer tournament summer trial إن سمينه إيو winter trial إن سمينه تاسنا وكو جد جرنا وحنا ربنا هدوي لا هذا سنة كان دبياق ديسي أما بلوغ سنة كعصبة إن أن مرلبات إذا كم ارتقادنا قفكستا Soomaaliya ka qayb gali kara oo qofkasta oo Soomaaliya oo talenti ama koox ahaan uga qayb gali kara ama individual ahaan uga qayb gali kara waxa waxa iga sheegtay kulli Cabdisalaam narar badan ayaan ka hadalnay ciyaaryahanka Norway iyo Man City oo aad dhashay bal sidoo heerkan ugu gaaray ma dhinaca qoyska gacan laga soo siiyay ma si kala loo tababaray bar stage kan ugu weyn oo qof Soomaali u gaaray sidoo gaar waxna u sheegi kartaa Cabdinaasir aad iyo aad u mahadsantahay horta intaan ilaawin shalay ayaa waxa loo magacaabay under 21 ka qaranka Norway wuxuuna bixi doonaa maalinta Khamiista ah waxaana la ciyaarayaan Greek la ciyaarayaan taas waa mid runtii dhibkii aan kala soo marnay Cabdisalaam waxa halkan lagu sheegi karo ma waxaan xasuustaa -41 qof kasta qiyaasi kara marka meel cidla banaan asoo ku ciyaaray oo 12 jira aan aniga intaas wajiga kaliya iga dooban yahay gacmahayga la arkin ana 2 sac daawado waa adag tahay marka waalid Soomaaliyeed oo saas sameeya qabowgaasi wiilkiisa fiirsana marka wuxuu ka bilaabay Cabdisalaam asigoo 7 jiraan koox u geeyay kooxdii aan u geeyay waxay ahaayeen koox wada cadaan oo majority tuulada anaga aan deganay 3,000 qof aad deganay markii arkeen xirfadiisa ay wixiisi cadaankii oo dhan guriga noogu wada iman jireen ma ahayn markii inuu xisaabta taf ku yahay ama sayniska taf ku yahay xirfadiisa kubadeed ay ugu iman jireen waxayna dhihi jireen nabar sida macnaha skillska loo sameeyo nabar markii dambe waan ka soo xaafad waxaan ku degnay Fiyaal Hamar laakiin Soomaalidu waxay badnaayeen Florishko waxay yiraahdeen wiilkaagu ha geynin meeshaas waa cadaanka ku badan oo cunsuriyiin anigana marka shaqada xaqana waxa waaye waana shaqeynaayo oo macallin school marka shaqadii iyo geyntiisii waa anaha ay ugu dhib badnayd laakiin isagii lugu ku tagi karay 2 daqiiqo lugu noo jiri kalaafka kale markii aan tagay meesha aan diiwaan galiyay isla markii ana iska diiwaan galiyay hadana waxaan iska diiwaan galiyay inaan referee ahay ujeedadeedu maxay ahayd in maartay cunsurnimada ay Soomaalida sheegayaan in macnaha aan ka ilaaliyo carruurtayda ciyaartii koowaad aan qabtay